الله تعالى وبركاته كلهم وعن أصحابتنا سيدة توس أو حرن برنامج كان حساباتك أم بلوني أسبوع هراء أما تضبط هراء أسبوع هراء هدي أن حسوسنا عشر كيكوبات أها بلوغي أن كسو قادني وحان هراء أسور شغني برنامج كان كويك بوغ إنه يهي برنامج أي استعمالا جناح ستذا سيدة كله ويهي مد أدو أنفعية أو علمية سن أو كمبيوترايسد casarkii u horeeyay oo maalintii uu asbuucii hore baxay waxa uu ahaa sida aan aniga marka hore u abuuran karo company-gaas oo ah company-gayga ama meesha goobtayda ganacsiga aan u waafajin karo bal in la socday in kale waxaan rabaa inaan casarkii aan week hore bixinay aan hal su'aal idinka weydiiyo halka su'aalna waan idin sheegi doonaa meesha jawaabta aad ku soo bixin doontaan waxaan soo sheegnay in loo abuurayo company-ga labadii hab oo company-ga loo abuurayay ayaan rabaa inaad ii soo sheegtaan qaabka loo abuurayo waxaan iigu soo direysaan ciwaanka barta Facebook-ga ee hadda shaashada hortiina ka muuqda ayaad iigu soo direysaan jawaabtaada ha noqoto fadlan mid Soomaali ah waxa kaliya aan ka rabaa inay ii sheegtid halkaasaan tagayaa halkaasaan ka tagayaa iyo halkaasaan tagayaa hasaan ka rabaa inaad soo jawaabtid waxaan maanta ku dhigan doonaa casarkan waa casarka labaad sidaan wiigi hore idin ballan qaadnay inaan si itus oo itaabsiyo oo practical aan idin tusi doono qaabka magaranaysa company-gaaga iyo alaabta dukaankaaga taad isku waafajinaysid haddii la yiraahdo maanta casarkana waxaan ku dhigan doonaa qaabka la isku waafajiyo alaabta dukaanka ku taal iyo computer-kaaga adigoo isticmaalaya barnaamijkii sahlana ee Quick Book sidaan ognahay shirkadii Al-Fathi ee aan soo abuurnay asbuucii hore waxaan filayaa inaad garanaysaan qaabkii aan u abuuray fududa waxaan rajaynayaa inaan maantana bal dukaanka alaabta taal aan iswaafajiyo Soomaalidu waxay isticmaashaa qaabka ah in company-ga uu dukaanku marka hore jiro oo shaqeynayo kadib oo ganacsaduhu ogaado in barnaamijkan Quick Book uu jiro markaas kadib alaabtii soo listi karayso oo Quick Book iyo iswaafajiyo iyo dukaanka in marka hore lagu bilaabo barnaamijkan Quick Book marka waxaan rabnaa inaan soo qaabkii loo soo diiwaan gashanayay haddii aan soo furo company-geeni Al-Fathi General Trading ahaa week hore aan sameynay waa magacii waa kaas Al-Fathi General Trading Company waa shirkadii Al-Fathi aan soo abuurnay bal marka hore intaan u gudo galin aan soo fiirsho xogta meesha taal company-ga xogtiisa aan soo fiirsho report ayaan tagayaa company and financial ayaan ka sii tagayaa waxaan dooranayaa balance sheet standard bal waxa company-ga ku jira company-ga waxaan ognahay asset iyo liability labada inuu yahay asset-kiisina waa 0 liability-gina waa 0 oo wax kuma jiraan ma jiraan wax asad meesha ma yeelan wax deynana laguma leh wax hantinana wali company-ga lama gelin waa balance sheet-kii haddii aan isku dayo bal loss iyo profit-ka aan sameeyayna aan soo fiirsho loss iyo profit-ka profit and loss standard-ka aan soo fiirsho waxa moodaa iyadana inay aysan waxba ku jirin oo uu nil yahay report ayaan tagayaa iyadana company and financial ayaan ka sii tagayaa profit loss standard itus ayaan leeyahay waa ujeedaan ayadana income-kaygii waxba ima soo gelin oo 14 bishan oo maanta ah ilaa iyo shalay waxba ima soo gelin oo 00 marka waxaan rabaa bal alaab ayaan soo xareynayaa alaabta aan soo xareeyo waxaan rabaa inaad ila socotid qaabka ay u saameynayso balance sheet-kayga lacagta 00 ahayd meesha ay ka galayso akoonka ay ku dhacayso waxaan rabaa inaad step la socotid marka oros alaabta qaab badan ayaan soo xareysan karnaa qaabka u fudud aan soo xareysan karnaa waxa weeye anagoo list soo furna list menu kadib ka dooran item list daaqada isu weyne halkan waxa gala alaabta meesha ku taal ayaa gasha kadib ka sii dooran item kadib tagayaa waxaan tagayaa item ayaan tagayaa furmatay taybka alaabta waxa rabtid inaad xareysid waa maxay lagu yiri maxaad rabtaad inaad xareysid alaabta ana rabnaa inaan xareyno waatan waa inventory ayaan leenahay oo alaab inventory ah magaca alaabtaas maadaama dukaanku uu yahay Al-Fathi General Trading oo waxyaabo ay iibiso waxaan dhahaynaa bur salahan bur cumaan ayaan leenahay bur cumaan waxaa noo taal halkan waxa gelinaynaa inta laga soo siiyay calaakiish salahan calaakiish waxaan laga soo siiyay calaa half waxaan laga soo siiyay ala $40 ayaan laga soo siiyay
على لور أفرتن دولار يعني نقص سي أنا قيمة هذا أن إبننا محوي هاي على لور كنتن دولار يعني إبننا أنت أيات كايستا يولي هالكان on handy أنت أيات كايستا صراحة waxaan ka haystaa 10 kiish ayaan haystaa total value marka 40 kaas ayuu wuxuu ku dhufanayaa 10 kan oo 400 ayay noo noqonaysaa halka wuxuu ku leeyahay income account-ga uu ku galiyo waa sales halka waxaan ku qorayaa sales oo asaga computer ku yaqaan markaan sales ku qoray hore ayuu ka soo tuuray sales oo ah income waan gartay taasna halka waxa ku taal reorder point waxa weeye xasuusi markuu maxaa la yiraahdaa markay si dhamaanayso alaabta xasuusi intee maximum afar xabo markay ka hadhayo kale xasuusi si aan aniga dukaanka alaabtayga waay marka sameynaysid maxaa la yiraahdaa mid kale keenaysid next ayaa dhaysa hadii kale okay iska dhaysa si alaabtaas kugu safrado marka intaan okay dhihin bal alaabtii meesha ay saameynayso su'aasha ah xagee alaabteeda saameynaysa balance sheet-kii ebrayu ahaa bal xagee way ka saameynaysaa markaan barnaamijka bilaabayna waxaan soo sheegnay in QuickBook uu ku shaqeeyo saddex qaab qaybta koowaad oo asset ah qaybta labaad oo ah liability iyo qaybta saddexaad oo ah equity asset-ku waxaan sheegnay inuu la mid yahay liability-ga oo lagu daray equity-ga marka haddii alaabtan inventory ay tahay oo alaab dukaanka taa ay tahay asset ay gelaysaa taas la isku haysto laakiin waxa weeye maadaama asset ay noo gashay $400 equity iyo liability qaabka u saameyn lahayd waxaan su'aasha hadii aan isku dayo inaan ka jawaabo waxa weeye $400 hadii ay noo noqoto asset oo company-gu uu asset ahaan u haysto waxa jirta 400 inay galayso equity-ga account waxa imaanaya meesha la yiraahdo open balance equity oo lacag hantinayaal aan wali lacagtooda la qorin $400 oo lacag ayaan company-ga taal oo cusub walina dadka la halma sheegin equity iyo liability-ga halkaas ayay ka matalaysaa oo equity-ga u matalaya marka sidaa dadka ay balance sheet ku noqonayaan oo arkayna markaad okay ayaan dhahayaa company waxa yimid wax la yiraahdo bur cumaan aba yimid sales account ayuu ku jira inta aan ka haysano waatan inta halkan ay kugu qoran tahay jidka waa total quantity on hand qiimaha aad haysatid lacagta inta ay iibinaysid price $50 weeye sawirkiisina ma haysatid bal afiirna marka reportkii wax iska bedelay company ayaan tagayaa company financial report ayaan tagayaa company financial ayaan ka sii tagayaa waxaan sii tagayaa balance sheet standard balance sheet standardkii waxa u jeedaa inuu asset-kii uu kordhay oo asset-kii siradaha markii hore hadda waxa weeye $400 total current asset waa $400 total current asset other current asset waa $400 total current asset waa $400 marka total assets isku waa $400 calaamada hoos ka xariiqan waxay sheegaysaa inay balance garaysan tahay xisaabtaas liability waa deymihii aan equity waa alaabtii lacagtii lagu furay dukaanka waxa yimid account la yiraahdo opening balance equity waa hantilayaal aan lacagtooda la sheegin lacagta $400 wax iska lama sheego wali waan sheegi doonaa lacagtii $400 ayay markan tahay oo company-ga total equity uu haystay waa $400 marka must be asset-ku waa inuu la ekaado labadan liability iyo equity-ga oo la isku daray hadii aan kugu celiyo casharka aan soo qaatay casharka waxaan tagnay list menu tusaale alaab kale ayaan soo xareynaa item list ayaan ka sii dooranay item ayaan ka tagnay kadib waxaan dooranayaa new alaabta aragto ma maxay service baa ma inventory baa waa inventory part alaab ayaan rabnaa inaan xareysano tusaale alaabta waxaan alaabta aan keensanay alaabta notal waaye sorry waa sonkor casaan ah sonkor casaan ataabka ayaan ka soconayaa qiimaha sokorta laga soo siiyay calaaloor waxa laga soo siiyay $45 oo lacag waxaan gadayaa aniga tusaale waxaan gadayaa $45 baa laga soo siiyay $55 ayaan gadayaa $10 ayaan saartay halkan markii laba xabo ka dhiman tahay ii sheegayaan leeyahay waa laba xabo ii sheeg markii ka dhiman tahay oo reorder point-iga markuu sii dhamaanayo ayuu qeylinayaa wuxuu leeyahay laba xabo ayaa ku hartay on hand inta aad gacanta ku haysato waxaan ku haystaa 10 ayana
في سو markaan taabto halkan meeshan hadda falaarta ay saarantay total value wuxuu noqonayaa 450 oo 45 oo lagu dhuftay $10 waxay noqonaysaa $450 taabka ayaan taabanayaa wataas $450 taariikhda aan soo xareysay waa waa December 14 sanada 2016 waa ila faanta u maleynaya okay ayaan dhahayaa wuxuu leeyahay sales ka soo gali waa sax sales inaan soo galno meesha waa loo baahan yahay oo meesha ay ku dhacayso waa inay sales ku tahay okay ayaan dhahayaa markaas su'aal ayaan ku weydiinay intaan okay dihin bal saameynta ay ku yeelanayso inta aan anigu ku sheegin inaad ka fikirtay ayaa la rabaa inta post video ga saaratid meesha ay saameynayso waxay saameynaysaa laba account ay saameynaysaa account la yiraahdo inventory alaabta yaallay dukaanka alaabta inventory horta waa alaabta dukaanka kugu taal alaabta inventory ga dukaanka taallay maxay saameynaysaa decrease waa increase ayaa ku dhacaya way increase garoobisa oo way badanaysaa $400 ba taallay $450 uge $950 ay noqonaysaa account la yiraahdo opening balance equity oo ahaa maxaa la yiraahdaa hantidii lagu furay dukaankana asagana wuxuu noqonayaa $950 ay noqonayaa oo waxaan ka wadaa I'm sorry $850 ay noqonayaa $450 hadda aan ku daray iyo $400 hore ay taallay bal fiirno bal isbedel ka dhaca mid kale hadda u baahantay inaan xariisina next ay dhahaysaa okay aan leh alaabta taallay waa tambur cumaana iyo sokor casaana bur cumaana waxaan ka haystaa $10 $10 wuxuu ugu fadhiyaa wuxuu ugu fadhiyaa $50 ayuu ugu fadhiyaa wakaas kanna waa sokor casaana sokorta casaanka waa inventory party qaybta account-ka sales ay galaysaa $10 iyadoo ugu fadhidaa waana $10 ayaan ka haystaa $55 ayaa halka xabab ugu fadhidaa reportkayga aan soo tago bal aan arko wax dhaqdhaqaaqa dareemay waxaan rabaa company-ga aan si toos ula socotaan wax walba oo ka dhaca inaan soo rabaa waxaan tagayaa balance sheet standardkii ayaan tagayaa waxa u jeedaa balance sheet standardkii asadkii marka hore $400 ayuu ahaa waxa ku soo darmasantay $450 oo $45 oo min $10 sidoo kale opening balance equity asagana $400 ayaa ku soo darsamay oo waxay ii noqotay $850 total hantidii Italy bakhaarka waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen kaasna oo aad maanta ku barateen casharkan sida alaabta dukaanka taa loo soo xareeyo halkan waxa gala diildiilimaha waxa gala dukaanka alaabta ku taal dhan meeshan oo dhan waa meesha ay gal lahaayeen alaabta ka maqan waxaan rajaynayaa inaad si fiican maanta u sameyseen aniga haddana laba xaba soo galiyay adiga waxa bakhaarka alaabta taal oo dhan inta tirisid casheeshay u tirisid waxa soo galisaa shayga magaciisa inta xabo ka taal inta gacanta ku haysatid qiimuhu ugu fadhiyo iyo inta gadaysid kullaas aan ku soo tax sa alaabta dukaanka taal isku waafajid iyo barnaamijkooda buuga waxaan filayaa casharka maanta inaad si fiican u idin dhacay laba cashar ayaan soo dhiganay cashar koobaad oo company sida loo abuurayay kan labaad oo ah sida maxaa la yiraahdaa la soo waafajinay company alaabta ku taal iyo hadii la ku roon yahay iyo barnaamijkan kuwig buuga waxaan ahay Roobal Axmed Idle waxaan mar walba u taaganahay inaan idin faa'iideeyo cilmiga Ilaahay anaga u nasiyay waxaan rajaynayaa ganacsato badan oo ku faa'iida inay jiri doonto barnaamijkan barnaamijyo badan oo xiiso badan ayaan soo wadnaa hana ka yaabin inaan ka daalno barnaamijyadan accounting package-ka oo aan idin faa'iideynayno waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh